hambalyeynaya ardayda maanta ka qalin jebinaysa sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa iyagana u hambalyeynaya ardayda ku biiri doonta college-ka waxaan idin dardaarmayaa inaad fursadaha qiimaha badan aad ka faa'iideysataan sidoo kale bulshada maanta halkan ka hadashay ama ka soo qayb gashay maxamed maanta kaliya duca uma baahna markastoo aad xusuusataan inaad u ducaysaan aad garab istaagtaan aad isku daydaan inaad boorisaan innaga Soomaali haddaan nahay waxaynu caan ku nahay wax la yiraahdo xamaasad maanta iyo berri ah maanta iyo berri waa wax halkaa runtii ina dhigay bulshadeennana ragaadiyey qofka bini aadamka ama moralka marna kama maarmo saacad kasta iyo xilli kasta noloshiisa u baahan yahay inaad marka ardaydu wax baray idinku waxaan ku yiraahdaa macalinkiisa dhiirigelisaan macalinkiina dhiirigelisaan ardayda kalena aad dhiirigelisaan si ay ugu soo hirtaan maxadka iyo bahda ustaadkaba baan idin dardaarmayaa waana waajibaad idin saaran haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin sidoo kale bulshada waxaan ku boorinayaa bara qiimo badan weeyaan ustaad Maxamed kama inaan baranin barayaashana macnaha ma ahayn waxa ay ina baraan inay cilmiga sadaqeeyaan laakiin wuxuu soo kordhiyay kaalin muhiim ah oo ay u baahan tahay dhammaanta inaan xambaarno bulshada gaarsiino taasoo ah cilmigii Ilaahay asaga baray inuu waalidkiis u bixiyo 99 arday oo waxaan ku rabaa inuu fir wax ku baro wax la heli karaa ma ah wax la sadaqeeyo waxa ugu qaalisan wax weligii socon doona cilmigu wuxuu ka mid yahay sadaqada jaariyada la yiraahdo wuu jiri doonaa inta qofkaasi nool yahay xitaa qofkii uu sii baray ayaa qaadi doona waxaan kuugu ducaynaynaa ustaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanka aad leedahay inuu ku rumeeyo sidoo kale himilada aad bulshada iyo dhalinyarada aad ugu istaagtay oo rabtid inaad ku soo saartana ayagana Ilaahay ka dhigo kuwii xilka guta si wanaagsan u xambaara haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin waxaan ugu bishaaraynayaa ardayda ku soo biiri doonta maxadka inay u bogi doonaan macalinka iyo xiisadiisaba taasna iskama lihi laakiin waan u fariistay waxbuu i baray waanan u fiirsaday xitaa maadadan qofaan jeclayn inuu jeclaysiin karo waayo badana macallimiinteena ama barayaasheena waxaan uga baranay cilmi intay hololo nagu siiyaan ama wax theory ay nagu qubaan lacagtana hololo inaga siistaan laakiin waa wax inagu cusub macallin danteeni ina kala hadla يعني العقد مهم إيه ما هو مهم إيه إن هاد وحبرتي فعنا أرسل عيسى معلم أنت أقولها ميال كهلي نضرب حسديس لما أنتم ويديهم بالليلية ما حد كويدين كسر دوينية استاذكن إن شاء الله ودعيننا إلى سبحانه وتعالى نسان كيسة آخرات كيسة أدمها وقدر لنا هاي إذن كنا كفايدة استفرصد ومركز سيد الدافع إن شاء الله هل قوي أيام ربعين إن شاء الله بهذا كولجك معلمك يا وحنا كوري هبلها قلت بدنا ما أنت قليل تجيني يبغى أنا بيبيو سوى عنو سوتشيس سوى عن سيس كتير هدان محمد لببيد إذا بين هدان محمد لببيد إذا بينا كإذا شو ما بخير أبوه إيه ببرايونا بحياي قف بلا قئي هذا فله أبوه حوياني الله يوبلا يذك هاي باقي باتهاي آمين أنت دعي هاي وحبان اللي هاي هالكي باطو دمغداي قف برشدة فهما يديكتنا وانو باهنين سوينا باهنين قفنا لها إذنك وحيدين دانا إذن برا يلعقنا إذنك مرة وقضتكو لعقت واللوغيا ماشي إذنك شوكو سوا قف برشدة فهما يديكتنا وانو باهنين إساقنا ينو براتن كابار كسرة شوكو ومدان عدعيد صوب بحدي يبور بقرينة إنه dadku waxay u googayaan wuxuu beer isleeyahay wax la beerto oo la soo baxo dad baa runtii ugu qiimo badan dadku waxay u googayaan wuxuu beer isleeyahay barbaar yahay tale beegsado badiyo guushiina meeda reer tale sacabnimo oo maqlayeen barbaar yahay tale beegsado badiyo guushiina xifad baa halkaa baaqaysay buugga ku ogaada baraaruga intii aan waqtigu ba ay idin dhaafin bilaash maaha gabay iyo murtida baydadka irdheeya barkhad weeye sadaqadu walaal waana baab culuse waa geerishay baajiyo beere sama weyne balo iyo abees iyo dhiba kaaga baydadine waa baraka aan caad ku qarin beena celinayne waa bishaaro ruuxii baxshaa bayd sandagayaaye bugto iyo bayuur iyo xumaa looga boodaaye waxa lagu badbaadaa markuu uu ku baqayaay maalinta qiyaamo runtii waxa adduunka ay ku soo sadaqaysatay ayaa u baxsataa
waxa lagu badbaadaa markuu ku baqayaaye barbarkiisa ciiriya naxlaa lagaga baydhaaye in cilmiga hadeer laga baxshaa waa inoo bilowe baraha horseedoo walaal balan lagaa dayrde idinkuna bulshooy baaqan culus baylaha ka ogaada waa inaad dadka gaarsiisaan insha allah gabdhaha quruxda badan ee maanta qalin jebinayaan si gaar ugu hambalyeynayaan beydkana ayagu quseeyaan waa inay si fiican dareenkooda ay siiyaan dumarkii la beeraa ifku wada badbaadshaayey maxaa lihi ninkii gabar waxbaray bulshu waxbara soo ma waayo gabadhu waa aruusha waa badbaadiye dhab ah dumarkii la beeraa ifku wada badbaadshaayey badow baa fursado bi'iyo oon beegsan karahayne bilis yahay waxaad buuxiseen meel bannaanayde ballantii inaad oofiseen waa barkumataale waan bogaadinaynaa inaad guurta jebiseene cilmi bilicde xishood lagu bermaday baaqa ku ahaada ifku baratan weeye dhabadayaana laga bayrin hablayahow baraadkiiyo caqliga baadilka ilaasha bulshadana intaad caawisaan baari u ahaada insha allah intaasaan kusoo koobayaa gabaygaygu zaayidku u koobnaa laakiin fariintu gudbinayaa culus dhammaantiin waxaan rajaynaya inaad hambaartaan hal gabay baa layga codsaday halkaa gabay baan rajaynayaa inaan hal mar jac ka siiyo wiilkii iga codsaday walow uu maqan yahay gabaygaasi wuxuu ka hadlayaa yaxyax baa la yidhaahdaa wuxuu ka hadlayaa aaladda maanta dunidu ay marayso oo dadkeena waxaan ku dhex cambaday sida social media qaybihiisa kala duwan haba ugu darnaado aaladda tiktok la oran jiray qisadiisa hadda idinkama sheekayn karo qofkii muqdisho cable daawaday ayaa waraysiga soo dhammaystiran ka helaysaan ama xogtiisa asagun baa idin akhrinayaa wuxuu yidhi horaadada intaan qaawiyo qoorta iyo laabta oo wixii qarsoonaan jiriyo qalabka soo muujo qur-aankiiyo intuu nebigu yidhi quursan kari maayo calayhi abdulsalaatu wasalaam qubi maayo qowlkii aliya qaata mara fiican dhaqankayga qalan maayo oo qool ku xiri maayo qumanihii i dhalay aabbahay qaali weeyaane sumcad qaniyo quruxduu lahaa xooli qaban mayso ma qasaasho hooyaday macaan qayb kastoy tahaye oo qabkii walaalkay lahaa quus ka dhigi maayo qalbigayga wiilkaan ku qoray qoomamayn may hadda kuma qoriyaa waa kaan guursan doonaan ka hadlaya qalbigayga wiilkaan ku qoray qoomamayn maayo oo intaan qaraabiya tolnahay iyo qabiilkayga intii qiimo ila doonaysiiyo qurux inaan yeesho soomaaliba intay qaayibtee qaali ugu haysa marna qac ku shubi maayo iyo qoomamiya ciide allahayow ha ii qorinan qaafilka ahaado quruxdoo bannaan taallo iyo qalanjo boodaysa ii soo qorfaaliya ammaan lagu qasaaraayo ifkoo lagu qarqoomaa leh iyo qabalo shaydaane inta aan ilaahay qalabin dunida qiiqaysa qoortiyo kubkiyo naasihiyo qariya jirkiida السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما هو يفهم قليلا ونادي وعنا ضل كل